haddaba waxaan idin soo gudbin doonaa xubinta Bollywoodka iyo wararkii ugu dambeeyay aflaanta Hindiga iyo sheekooyinkii laga qoray aktarada Hindiya iyo sir fakatay Malaika Arora oo ogaatay in driverkeeda uu sirteeda bixinayay laakiin uu u gudbin jiray warbixinta Malaika Arora oo dhameystiran ayaan idin soo gudbin doonaa laakiin fadlan hadaad ku cusub tahay channelkan subscribe like comment iyo share taba inagu caabi anagana dhiirigelin ayay noo tahay adigana waxba kuma dhibeyso waana kaaga mahadcelineynaa Malaika Arora iyadoo atrisho weyn ahayn ayaa waxa ay iska haysataa saxaafada maadaama ay qasab tahay in wax ay ka qoraan atrishadan waxaana midaas u sabab ah kadib markii uu furay Arbaz Khan walaalka la dhashay Salman Khan iyadoo muddo kadib xiriirka jacayl la sameynaysa aktarka Arjun Kapoor oo ah aktar da'yan isla markaasna adeer u ah Anil Kapoor oo waxa dhalay Arjun Kapoor Bonu Kapoor oo ah walaalka ka weyn Anil Kapoor ahna filin sameeyay caanka dalka Hindiya haddaba Arjun Kapoor iyo Malaika Arora ayaa dhawaan waxa ay qorsheynayaan in ay isguursadaan waxaana loo badinayaa in ay sanadkan aqal galaan labadan lamaane sidoo kalena waxaana arintan ku faraxsaneen aktarka Salman Khan kaasoo dhawaan Arjun Kapoor aabihiis Bonu Kapoor u diiday inuu soo galo gurigiisa Malaika Arora ayaa waxa ay shaqada ka ceyrisay dareewalkeeda waxaana Malaika hadda qarxisay sir iyadoona sheegtay in dareewalkeeda iyada baawurka u kaxeynayay in uu bixin jiray sirteeda iyadoona sidoo kale sheegtay inuu warbixinteeda u sheegi jiray Arbaz Khan dareewalkiisa kaasoo la socodsiin jiray Arbaz Khan waxaana sidoo kale Malaika sheegtay in weli qoyska Khan ay weli hadal hayaan arrimaha ku saabsan nolosheeda gaarka ah Malaika Arora iyo Arjun Kapoor inkastoo aysan weli shaacin in uu xiriir jacayl ka dhaxeeyo laakiin Arjun Kapoor waxa afkiisa laga hayaa mar uu ka qayb galayay showga magaciisa la yiraahdo Coffee with Karan Johar oo ah barnaamij aktarada iyo dadka caanka ah lagu wareysto oo soo saare ama uu iska leeyahay directorka filim sameeyaha caanka ah Karan Johar oo ah filim sameeyihii filimkii Kuji Kuji Hotahe isagoona Arjun Kapoor sheegay mar uu ka qayb galayay barnaamijkaas inuusan single ahayn ama iskaabul uusan ahayn laakiin xiriirka labada lamaane waxa ku qanacsaneen Arjun Kapoor gabdhaha la dhashay Ashula Kapoor iyo soo kale atrishada Sonam Kapoor balse Malaika Arora ayaa hadda ah mid qabsatay warbaahinta dalkaasi Hindiya ee ka faalooda aflaanta iyo aktaradii dadka caanka ka ah dalkaasi Hindiya maadaama ay ka soo tagtay aktar caanka ah dalkaasi Hindiya waa Arbaz Khan iyadoona ku biiraysa nolosha aktar cusub oo hadda dhawaangal ku ah sameynta filimada Bollywoodka laakiin ka soo jeedo qoys ahaan qoys caan ku ah filimada Hindiga